السلام عليكم صاحبي السود وهذا ويلكن Soomaaliyeed waxa uu ku sigtay in la toogto oo booliska dalka Jarmalku ay dilaan kadib markii gaarigooda uu amar la'aan iska galay muuqaalka wiilkan dhalinyarada iyo dhacdadan ayaa baraha bulshada aad iyo aad u haysata oo kula wadaagi doona soo dhawaada dhanka kale Sacuudiga ayaa waxa ay xalay soo rideen gantaalo Xuutiyiinta Yemen ay ku rideen Israa'iil oo hawadeeda dul marayay ay soo rideen taa bedelkeeda weerarkii lagu qaaday قدر دلك قدر لغو قادي ديارته فوليي waxay ay adeegsadeen hawada dalka Sacuudiga bal hadaba isqabadsi xageed wasiirka amniga Iran ayaa isaguna waxa uu sheegay isagoo la hadlaya Carabtii waxa uu ku yiri waa difaac weyseen walaalihiin Falastiin maanta difaacda dawladihiina iyo inaan la burburin difaacda Carabtii godkeeda ayaa biyo ugu soo galay hada walaac daran iyo isku dhaxyaac ayayna ku jirtaa dhanka kale madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa waxa uu sheegay wargeyska Oxford la yiraahdo warbixin uu ka diyaariyay waxa uu ku sheegay in uu ku qaldamay in madaxweynaha Ruushka kulankii bishii la soo dhaafay kulmeen in uu iska dhaadhiciyay in ninkaas uu ka dhaadhicin karo inuu dagaalka Ukraine joojiyo taasina inay qalad weyn ahayd oo uu ku kadsoomay soo dhawaada saaxiibayaal hadda nagu cusub tahay muuqaalka like sar sidoo kale nagu soo biir aad ayaad u mahadsan tahay ra'yigaagana qaybta hoose nagu la wadaag oo mahadsan tahay aan ku bilownaa muuqaalkan ayaa baraha bulshada aad iyo aad u haystay saacadihii la soo dhaafay wiilkan dhalinyarada wiil Soomaaliyeed Afrika ka tagay dalkiisa ka tagay waxa uu tagay Yurub Talyaaniga ayuu joogay dabcan waxa uu ka waayay wax sharciyad ah kadibna uu isaga soo tagay hadana Jarmalka ayuu imaaday wuxuu damcay marka in uu Jarmalka iska dhiibo ayuu damcay dad baa marka waxa ay ku yiraahdeen bax ord booliska u tag qofka dabcan ka duubaya muuqaalka oo yiri booliska u tag waa qof laba midood ah ama waa qof cunsuri ah oo wadankaas u dhashay oo raba ninkan dhalinyarada in la qaarijiyo ama waa qof Soomaaliyeed oo xiqdi iyo xumaan kale ay ku jirto wiilkan dhalinyarada ah waxa uu wataa boorso sidoo u socday gaarigii booliska ayuu iska jaray dabcan hadii halka uu joogo laga toogto boolisku waxay dhihi karaan waan ka shakinay ninkan dhalinyarada ah waa nin madow ah lama yaqaano boorsu wata boorsad wax ku jira lama yaqaano ma bambooyin iyo qarax iyo hubba ku jira lama yaqaano waad arkaysaa sida ay ugu soo kala yaacayaan loo kala tuurayo isaguna gadaal ugu cararayo ugu dambeyntiina meeshii ayuu isaga tagay ninkan marka xaalad halisa ayuu galay ayaan dhihi karnaa qofkii arintaas u diray ee yiri booliska iska dhiibna waxa uu ahaa qof 100% qalday waxa arkaynay intuu sii socdo dhan kamera ayaa daba socotay waxaan la oran karin kamaradu ma aha kamarada darbiga ku dhagan ma aha CCD la yiraahdo waa kamarad caadi oo telefoon qof ku qaaday sida aad ka dareemayso la soo dhaweynayo soo u socday buu iska jaray daaqadii taasina waxa ahayd qalad aad iyo aad u weyn dabcan wax badan buu isaguna ka baran doonaa Soomaali kalena wax kale ayay ka baran doontaa qofkii arintan ku sameeyay haduu qof Soomaaliyeed ninkaas boqolkiisaad gashay waxa weeye walaal caafis weydiiso ayaan leenahay hagaag dhanka la Sacuudiga xalay waxay soo rideen gantaalo Xuutiyiinta waa taqaana Xuutiyiinta Yemen iyaga mowqif baa u degsan waxay leeyihiin walaalaheen baan u aaraynaa reer Falastiin baan u aaraynaa wadadka kaliya oo maanta la dhihi karo qadiyadoodu sax ayay tahay markii ay rabaan inay Israa'iil duqeeyaan badana gantaalahoodu waxay maraan awada Sacuudiga halka ayayna ka beegsadaan oo ka duqeeyaan xalayto marka gantaalo badan oo Sacuudiga dushiisa marayay ayay Sacuudigu soo rideen oo ay soo daadiyeen kuwaas oo Israa'iil ku wajahna يعني يجاب waxay u noqdeen gaashaan taa bedelkeeda marka qadar markii la duqeynayay oo Israa'iil ay duqeynaysay oo ay ku beegsanaysay ururka xubno kamid ah ururka Hamas ay ku beegsanaysay diyaaradaha Israa'iil ee halkaas duqeynta ka geystay waxay ahaayeen baa leeyahay 8 diyaaradood bay ahaayeen noocyo kala duwan ah oo kala ah F-35 iyo nooc loo yaqaan 4F-35 kuwaas oo hawada Sacuudiga adeegsaday kadibna soo maray badda cas halkaana gantaalaha kaga riday qadar waxa la sheegay gantaaluhu markii ay ka baxeen diyaaradda oo la riday bartilmaameedkii intii aysan dhulka gaarin ayaa la ogeysiiyay Mareykanka in howlgalkaasi la fuliyo si aysan u dhicin haba yaraatee wax la yiraahdo hal la joojiyo howlgalkaas sida iyo sida si aysan u dhicinba inta hawada ay gantaalihi ku sii jireen ayaaba la ogeysiiyay Mareykanka sida ayaana maaragtay howlgalkaas u dhacay marka Carabtii qalqal aan caadi ahayn baa ku furan wax awood ah ma lahan iyaga dhaxdoodu ma midaysna way isduleyntaasna Israa'iil waxay kaga faa'iideysanaysaa in meesha iyadu ay ku leedahay tahayna awoodda iyo xaniyaha bariga dhexe inay iyadu tahay ayay
tilmaamsatay oo isku sheegaysa hagaag dhanka kale wasiirka amniga Iran ninka lagu magacaabo Ali Larijani ayaa waxa uu carabti u sheegay oo uu leeyahay carabti isagoo la hadlaya carabay dhageysta walaalihiin Falastiin ma tihidiin kuwa difaacaya gargaar u sameynaya baahi bay u dhimanayaan wax aad u qabateen haba yaraatay ma jirto cunto miinan u geyn hub kumaana taageerin qadiyad kale kumaana taageerin waxaad noqoteen walaalo aan jirin maanta adinka ayay idin haysataaye isdifaaca oo sidaad isku difaaci lahaydeen falankeeda gala waayo Iran iyada waa budo gees u tuman awoodeeda waa awood cad oo meel taala oo aan la xaqiri karin marka Iran teedu waa taas waxay leeyahay inaga waan isdifaaci karnaa dagaalkii 12 maalin socday waa la ogaa wixii ay gudaha Israa'iil ka sameysay waa la ogaa Iran wixii ku dhacayay oo gudaheeda ku dhacayay dabcan waxay ahaayeen waxyaabo badan oo uu Mareykanku ku taageerayay sida markii xarunta nuclear-ka ay qarxinayeen Mareykanka diyaaradihiisa ayaa qayb ka ahaa laakiin Israa'iil iyo Iran hadii la isbarbar dhigo sida caadiga Iran baa awood badan waana la og yahay marka waxay leeyahay anaga teena iska daayo teena waaba tuman tahay adinku maanta isdifaaca oo nidaamkiina iyo dawladnimadiina iyo maaragtay dadkiina shacabkiina difaacda waliba ninkan wuxuu ugu baaqayaa wasiirkan amniga Iran in ugu yaraan ay sameystaan midow jaangoyn kara waxyaabaha qataraha ee ku soo socda carabta sida ayuu ugu baaqayaa hagaag dhan kale shabakadan la yiraahdo Oxford ayaa waxa ay baahisay Trump hadalkiisa kaasoo leh waxaan ku qaldamay ninka la yiraahdo Putin kulankii bishii la soo dhaafay Putin iyo ninka la yiraahdo Trump ku dhaxmaray gobolka Alaska la yiraahdo ee Mareykanka kaas oo looga arrinsanayay sidii lagu joojin lahaa oo Putin Ruushka uu ku joojin lahaa dagaalka uu ku hayo Ukraine arintiisa looga hadlayay ayuu sheegay Trump in arintaasi uu ku qaldamay oo iska dhaadhiciyay inuu Putin kala hadli karo kana dhaadhici karo inuu joojiyo dagaalkaas waxa uu sheegay marka aad la joogto wuxuu yiri ninka Putin la yiraahdo ku tusinaya wax kasta inay fiican yihiin yaani meel fiican ku socdaan la sameyn karo inay yihiin waa nin ku tusinaya laakiin marka aad kala tagtaan waxa uu yahay aan la saadaali karin la qiyaasi karin sida nin ah ayuu ku sheegay marka wuxuu yiri arinta waan ku qaldamay waxa weeye mana ahayn inaan iska dhaadhiciyo sidaas buu taagan yahay dabcan Ruushka waa dal xifaaltan kula jira wadamadan NATO ku midoobay oo Mareykanku ugu horeeyo Ukraine dagaalka uu kula jiro waa mid ka dhalatay in Ukraine ay damacday in ay ku beerto ururka NATO midowga NATO inay ku beerto ay damacday sida darteed Ruushku uga digo waxa uu yiri ma ku biiri kartid waayo hadii Ukraine ay ku beerto NATO waxa dhalanaysa hubka nuclear-ka in la keeno Ukraine waxay xuduud la leedahay Russia iyo xuduud la leedahay sida darteed Russia xuduudda ay la leedahay hadii hubka nuclear-ka la keeno Russia waxay noqonaysaa shimbir qoyday Ruushku shimbir qoyday ay noqonaya wiilkan dhalinyarada madaxweynaha ka ah Ukraine waa loo sheegay waxa la yiraahdo wadankaaga ha burburin ka joog arinta ha sameyn ha ku biirin ma ku biira maxay dhashay waxay dhashay barqacad in dhulka la simo caasimadii Ukraine Kiev in ay noqoto sida Gaza oo kale maanta oo dadkii shacabka ah ay ka soo barakaceen oo Yurub taa kale iyo America ka u baxsadeen Ukraine waxay lahayd diyaaradda adduunka ugu weyn oo dhowr kun oo qofood qaada ayay lahayd halgan taala lagu fariisiyay وديارتي كفاري جرتي دقال aad iyo aad u fara badan uu ka soo gali jiray halgan taala lagu fariisiyay dhameed halkaas bay ku baabaaday waxay dhashay in ninkii diidana markii Putin oo lahaa war ka joog markii boqolkiiba 30 dhulkiisi laga qabsaday oo Ruushku uu qabsaday in Mareykanka iyo Ruushku ay ku gorgortamaan dhulkaas oo Ruushku uu yiraahdo dhulkan aniga haliiday dhulkan aan qabsaday aniga iyo iska haliiday Mareykankuna uu yiraahdo hadii aad rabto in lagu taageero waa inaad saxiixdaa macdanta uniga ee wadankaaga ku jirta waa inaad noo saxiixdaa si aan ula baxno oo taa u gaaraysa boqolaal bilyan gaaraysa hagaag fashilkaas ayaa ku dhacay ugu dambeyntii saaxiibayaal sawirkan aad arkaysaan waa furayaal aad iyo aad u fara badan ayaa halkan ka arkaysaa nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho jooga oo xanuunsan ayaa laga soo saaray calooshiisa furayaashan aad arkaysaan waa 30 iyo dhowr xabo oo furayaal ah ninka odaga ah maxaad is leedahay waxa ku kalifay intaas oo fura ah inuu laqo furayaasha inuu laqo maxaa ku kalifay is leedahay subhanallah dabcan waa arrin cajiib ah oo la yaabkeeda leh in qof bini aadam uu fura laqo hadana hal mid ma ahane 30 iyo dhowr xabo uu laqo dhacdan waa dhacdo cajiib ah iyaduna hadda taagan
marka aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal soo dhawaada dad nagu cusubtaa mar kale waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto haygagana aad qaybta hoose nagu la wadaagto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh raqiis ku gada gurigan iga dambeeya ayuutadaada gurigan ku iibso waxaan joogaa xaafadda Backland magaalada Nairobi waa xaafad aad iyo aad bulshadu ay u danayso inay degto waxa laga yaabaa inaad qurbaha fog joogto oo u baahan tahay inay Nairobi guri ka gadato waxaan ku hayaa guri kugu haboon waa ka guriga iga dambeeya waxa la yiraahdaa magaciisa Kawaakib waxa uu leeyahay masaajid isbitaal buu leeyahay iskuulkiiba halka kaga dhagan goobta carruurta ay ku ciyaari lahayd buu leeyahay laba lifti oo waaweyn ayuu leeyahay swimming pool buu leeyahay gym buu leeyahay isbitaalkii buu leeyahay farmasiyo u gooni uu leeyahay isbitaaladii waaweynaa ayuu daris leeyahay Diamond Plaza dabaq la yiraahdo ayuu halkan ka saaran yahay moolka weyn ee caanka xaga kale Westgate buu ka saaran yahay Aga Khan Hospital ayuu xaga ka saaran yahay iskuul baa ku dhagan muhiimadihiisu way fara badan yihiin waxa ajaayib ah inaad si fudud u gadan karto gurigan oo aad la wareegi karto furihiisa adigoo lacagta iska yareeynaya qiimihiisu waa macquul gurigu waa 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi iyo DSQ ama qolka shaqaalaha wax la yiraahdo qof shaqaalaha ku imaanaya qolka baad dejinaysaa musqushiisu leeyahay 3 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha 4 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha ilaa 5 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha ayuu leeyahay wuu socdaa wali waana u dhamaan rabaa si hufan oo gacmo furan ayaa lagu soo dhaweynayaa soo dhawow numberkan hoos ku qoran ayaad kala xiriiri kartaa aad baad mahadsantihiin soo dhawaada saaxiibayaal karibu sana